Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya laba maleeshiya beeleed oo saaka ku dagaalamay gudaha magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag isla markaana sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaan kula wadaagi doonaa guud ahaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda iskahorimaadka labada maleeshiya beeleed ku dhex maray magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, xiisadda waqtigan sida xaalka uu yahay iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada soconaya ayaan kula wadaagi doonaa. Soo dhowowda wada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo. Waxgaaga magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ay ka taagneed xiisad iyo dhaqdhaqaaq aad u xoogan ayaa waxaa wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in iskahorimaad saaka ka dhacay uu sababay in magaaladu guud ahaanba ay noqoto mid xaaladeedu ay kacsan tahay. Iskahorimaadka saaka ka dhacay magaalada Ceerigaabo ayaa u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo kasoo wada jeeda beesha Isaaq, waana maleeshiyaad ka soo jeeda habar jecle iyo sidoo kale habar yoonis, kuwaas oo iskahorimaad hubeysan uu ku dhex maray bartamaha magaalada, waxaana la soo warinayaa inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Sida wararku ay tilmaamayaan, laba qof ayaa ku geeriyootay halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen, isla markaana lagu dabiibayo dhaawacyada qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaaga. Iskahorimaadka oo ahaa mid kooban ayaa waxa ay wararku tilmaamayaan in xiisaddu ay degan tahay, laakiin labadii maleeshiya ee dagaalamay mid kasta oo ka mid ah magaalada uu dhinac ugu baxay, isla markaana uu muuqdo inuu diyaargarow iyo abaabul dagaal oo markaasi ku jiro. Wararku waxa ay tilmaamayaan in guud ahaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag laga dareemayo dhaqdhaqaaq xooggan oo kala duwan oo ciidan, isla markaana waxaa wararka na soo gaaraya waqti xaadirkan ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee maamulka Somalilan ay dadaal xooggan ku bixinayaan sidii uga hortagi lahaayeen mar kale in iskahorimaad uu ku dhex maro maleeshiyaadka gudaha magaalada, waxaana diyaargarow iyo heegankii ugu sarreeyey la geliyey ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan ee maamulka Somalilan. Warar qaar ayaa sheegaya in ciidamadii ku sugnaa magaalada Ceerigaabo iyagu markaasi la kala sabteen labada maleeshiya ee saaka halkaasi ku dagaalamay, taana ay keentay in xiisaddu ay noqoto mid aad u kacsan, isla markaana labada dhinac mid kasta oo ka mid ah uu galay heegankii ugu sarreeyey. Magaalada Ceerigaabo oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba xaaladeedu ay ahayd mid kacsan, isla markaana dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemayey, taasoo ku aadneyd in ciidamada difaaca deegaanka ee beesha Warsageli ay isku diyaarinayeen duulaan militari oo ay ku qaadaan magaalada si ay ugala wareegaan maamulka Somalilan. Ayaa hadda waxaa xaaladdu ay noqotay in ciidamadii iyo maleeshiyaadkii halkaasi ku wada sugnaa isku dhex maro. Dagaalkan iyo iskahorimaadka labada maleeshiya dhex maray ayaa lagu tilmaamay in uu sabab u yahay maleeshiya beeleedyo maamulka Somalilan ugu talagalay inuu ku qabsado deegaanada Shidan, Waqdariye iyo sidoo kale Yube oo lagu soo jebiyey dagaalo dhowr jeer ay ku qaadeen deegaanadaasi inay isugu tageen gudaha magaalada Ceerigaabo, isla markaana ay keentay ugu dambeyn in iyaga dhexdooda ay dagaalamaan maleeshiyaadkii maamulka Somalilan uu u diyaarinayay inuu ku qabsado deegaanada muhiimka ah ee Shidan, Waqdariye iyo sidoo kale Yube oo ah deegaano caan ku ah macdanta iyo dahabka. Maamulka Somalilan ayaa ilaa hadda aan war ka soo saarin iskahorimaadkii saaka ka dhacay magaalada Ceerigaabo ee sababay dhimashada iyo dhaawaca. Waxaa laakiin xoguhu ay sheegayaan in maamulka uu wado dadaalo kala duwan oo uu doonayo in xiisadda hoos loogu dhigo, isla markaana laga hortaga dagaal kale oo mar kale soo laabta, isla markaana labada maleeshiya beeleed ku dhex mara magaalada Ceerigaabo. Maleeshiyaadka beesha habar yoonis, waxgarad iyo sidoo kale saraakiil u hadashay waxay sheegeen inaysan wada joogi doonin iyaga iyo maleeshiyaadkii saaka ay dagaalameen magaalada Ceerigaabo, si la mid ah sidii ciidamadii difaaca deegaanka iyo guud ahaanba bulshadii Warsangeli ay uga barakiciyeen magaalada, si la mid ah ay uga barakicin doonaan maleeshiyaadkii saaka kula dagaalamay gudaha magaalada Ceerigaabo kuwa habar yoonis. Xiisadda ayaa u muuqata inay cirka isku sii shareerayso, hanjabaadda labada dhinac ayaana u muuqata in marba marka ka dambeysa ay tahay mid isa soo tarayso oo labada dhinac waxa ay hawada isku marinayeen saacadihii lasoo dhaafay hanjabaado kala duwan.